والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta ay tahay bishu 20 bishii labaad 2019 waxaa xafladii wareejinta wasaaradda booliska hawada ku qabanayna xafiiska wasiirka annaga oo ku faraxsan in wasaaradda wasiirka looga soo dhigay waxaa halkan isku yimid maanta maarayaasha garoomada Puntland iyo agaasimayaashii wasaaradda dhammaantood halkan waxay isugu yimaadeen soo dhaweeyay wasiirada cusub wasiir dowlaha iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka awal iyadoo horeyna noola joogta halkan dib ugu soo noqotay wasaaradda waa noo farxad dhammaantayo annaga iyo shaqaalaha guud ahaan anagoo ku hadlaya afka shaqaalaha wasaaradda oo dhan waxaan kusoo dhaweynaynaa si farxad leh wasiirka iyo wasiir dowlahaba وسيم حيرة ولا سوى وين ضغطها يلا تيم بعصمنا بجد مرة فعليا. الورجيتي سقوط بدن بقول عضي وتي وحاول يشرف يو كلام ومش عقد عضي وحن ربعنا هاي كنا بحال عليها بود يو وحاول مساعدة هناك خدع عمانتا المهم هالعليو كمان مساعدة وحاول يصير في وراء ومهن بفهم فين كمضي وصير دولتي أنا وصير شوقي أقسمها بود وحوي مارياشا على سمواحدية وساعدة السلس وكبرها iyo nidaamka iyo qaabka loo wada shaqeeyo wasaaradaha waxa weeye waqti waxaanaha in badan xoogaal oo institutionska dawladda laakiin wasaaradda waxba dheertahay wasaaradda institutionska dawladda runtii waxaan halkan ka cadeynayaa inaan maxay aad wasiirkan ugu bishaareynaya wasaaradda muhiimada inay ka jirto nidaam dawli ah oo wada shaqeyna oo heerarka aad qurux badan waxa weeye shaqada ay qabtaan baan keenayso dadka marka hore loo fushaa waxay yihiin dad hawlkar ah maadaama ay boodiyada waxa weeye 24/7 in loogu talagalay inay shaqeeyaan shaqaalaha waxay gaaraan shaqaalaha wasaaradda iyo garoomada ka shaqeeyaan inay ka dhowr 10 saacadood istaan bay ahaadaan xilliga dadka oo soo hormaraan xilliyada maxay keenay diyaar garowga 4 am bay boodiyada galaan waxa laga rabaa hadii ugu badiso afka galabnimo dadka waxa bay keenayaan ama shaqo kala mimo wasaas oo kale lixdan gaara agaasimayaasha guud habay marar waxa uga baahanaysaa iyo berito adoo raba inaad kala hadasho agaasimaha guud ama agaasima waaxidiyada todobada fiidin saddex fiidin wax xisbi joogada marka markii hore waxay tahay ma sha Allah dad ilaa isla soo doontay dad han iyo waxa weeye horumar iyo hiigsiga in marka hore yimaadeen wasaaradda ku cadeynaysa marka wasi ku bishaarayso waxa weeye dadkaas 24/7 heeg oo wasaaradda shaqadeeda iyo iyo horumarka waddankeena ka qayb qaataan waxa weeye daliilo iska badan yihiin waxa weeye systemka dawladda laakiin wasaaradda waxa weeye aad baan runtii loogu faanaa waan muraayadii waddanka haddana waxaan insha Allah la socdaa maadaama dawladdu soo noqotay strategic plan ama qorshe maxay keenay higsiga loogu talagalay maxay keenay horumarka waddanka qayb weyn inuu qaadano insha Allah marka dadkaas waxaan rajeynayaa inay si laba jibaaraan mooyaan insha Allah hoosudhac inuu dhacay waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ku wareejiyo hawada faylashii galabtii saddexda ahaayoo laba qaateen xiriiradiina iyo baawur balabtay kale inaan wasiirka ku wareejiyo faylkii oo nalala eegay oo waxa weeye waxyaabihii check and balance ka dhacay oo waxa weeye saxiixda ugu dambeeyay wasiirka ku wareejiyay anoo ku wareejiyay waxa weeye dugsimaha wasiirka loo biyo ugu dambeysay ahna wasiirka iyo wasaaradda booliska hawada halkan baan ku wareejiyay wasiirka أنا صوري هوشان إلى مدة الأساسي وسارد أبي يعني محلول وعليا سلا عبارة اسمه الله وحول السوق قاسي وحال وقرطور وحال معيس وقرط السوق جيبه قلنا مركز أي ماشي كسيوه إن شاء الله وحركينا هي أنا ورأينا ماشي لقى كسيوه مسؤولية ومسؤولية وين حلوة وين حرق وصلنا هاي وساعد الدوريستا هذا أنا وخبرتي عن جيبه مراعو وساعد وحاكا وحول ومارياش يا جاسمياش أنا وحنا قلت كان أبوتي وحاول وأنا إيماننا وأنا ترينا لكن مسؤولية هو وحسارتها هاي وشغلة أحسن إنتاج وذكر وفهم هاي وحاول وجاسمياش ومارياش اللي شغالها حرفة أولى ووحنا فهم هاي
marka waa soo dhaweynaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa kuli war inaan wada shaqeyno si hawluhu u fududaadaan isfaham fiican intaas ayaan ka rajeynayaa aad iyo aad ayaad umahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka iyo xil wareejintii